dowladda hoose ee degmada Burco ayaa xidhay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee hore sarfeyga looga saaray ee ku yaala xaafadda Balaas ee magaalada Burco. Wadooyinkani waaweyn ee ay awday dowladda hoose ee magaalada Burco ayaa ka iibisay qaar ka mid ah ganacsato shacab ah kuwaas oo si degdeg ah halkaas uga bilaabay dhismayaal cusub. Haddaba dadka degan xaafadda Balaas ee iska la dhulalka ku yaala wadooyinkaasi la xidhay hareeraheeda ayaa cabasho xooggan ka muujiyay wadooyinkaasi ay dowladda hoose xidhay, isla markaana fariin adag u diray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland uguna baaqay inay si degdeg ah arrintani wax uga qabato, iyagoo sheegay inay hore uga dacwoodeen dhammaan laamaha dowladda ee khusayso arrintani balse weli aan waxba laga qabanin. halkan waxaan kaga qabanaynaa meeshan la dhisayo oo ah gidaar dheer oo 280 mitir gaadhay. waxaan kaga qabanaynaa haddii aan nahay bulshooyinka xaafadan ku nool waxa weeyaan meeshaas oo waa la xidhay, waxa la xidhay wada taagan iyo 3 wado oo jiifa. waxaana xidhay dowladda hoose ayaa xidhay oo arrinka fulisay. waxa weeyaan markii aanu ka cabanay ee aanu kacdoon badan sameynay ee aanu gobolka tagnay ee taliya qaybeedka u tagnay ee dowladda hoose u tagnay, waxa weeyaan gobolku uu ka hadlay. gobolku si cad buu uga hadlay, warqadaas uu soo qoray, wuu joojiyay, wuxuu yiri waa la joojinaya. wuxuu yiri taliyaha qaybta biliiska ayay ku socotaa sida aad arkaysaan warqadaas. marka ay warqadaas ku socoto taliya qaybeedka wuxuu yiri markii aanu u keenay iyadoo oo barasaabku cadeeyay wuxuu yiri warqadani anigu maxaa ay ka rabtaan baabu. hadda waa warqadii uu gudoomiyaha gobolka Togdheer soo qoray. wuxuu yiri idinku wadooyinka haysataan oo leedi kawsarku waa la mid gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka waanu la hadalay. waxa uu nagu yiri si aan sarfeyga waafaqsanayn baan ugu qornay iska daayay bariinu. mudane maxamed yuusuf muraad xilkaagii waad ku fashilantay iyadoo oo Burco biyihii iyo dhooqadii ay Burco dhex yaalaan oo laamiyadii aad samaysay daad ku qaadanayo ayaad waxaad ka faashleysay wadooyinkii booyaduhu biyuhu noo soo marayeen ee aanu dadka meydka xabaalaha ka qabadsiinaynay. barasaabku warqad ayuu qoray sigoo leh hal la joojiyo arrinka. warqadda wuxuu qoray taliyaha qaybta oo amniga gobolka u xilsaaran. warqadda wax allaale wuxuu ka qabtay ma jiro. 3 casho ayaan sugaynay, 3 casho ba waa la dhisay. si kastaba ha ahaatee bililiqaysigan ay dowladda hoose ku bilowday wadooyinka waaweyn ee ka dhaxbaxa xaafadaha magaalada Burco ayaa ku soo beegmay xilli ay dowladda hoose ku fashilantay wax ka qabashada baahiyaha asaasiga ah ee ka jira magaalada Burco. Xabiib Saciid Xasan, shabakada caalamiga ee Somaliland Today, magaalada Burco.